السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaasha qiimaha qaalo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka Seylac 24 Ramadan Mubaarak meel kasta joogtaanna waxaan idin leenahay Ilaahay hayna siiyo habeenka Laylatul Qadriga iyo barakada iyo ducooyinka Ramadaanta Ilaahayna ha naga aqbalo inteenu soo cibaadeysanay balcaa waxaan doonaynaa inaan kaga hadalno faalla gaara maxaa kiciyay dhalinyaradii Somaliland ma siyaasiyiinta ka dhaxadlaysa mise dareenkoodii baa oodaha soo jabsaday haweenka dhalinyarada ah idiin muuqda ee ku magac dheer Cabdiraxmaan Heelo ayaa furfuray silsilad ilaa shalay ilaa maanta soconaysay oo dhalinyarada midba uu gobol ka soo jawaabayo isagoo kaga hadlaya xaaladda ka jirta Somaliland iyo sida shacabkii Somaliland ay u dareemayaan caburin siyaasadeed laakiin su'aashu aan isweydiinaya dad badan oo kalena isweydiinaya waxay tahay haddii dadka waqtigu caburiyeyba oo duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira shaqo la'aanta iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan goorma haddana ay samaysantay shabakadan kale ee isku xidhan ee caburinta siyaasadda keentay maadaama caburka siyaasadeed uu ahaa wixii dowladdii Maxamed Siyaad Barre lagaga saarayba dalka dadkuna ay ku naceen dowladdii Maxamed Siyaad Barre iyo dowladnimadeedii dhalinyaradu waxay ka dacwoonayaan ilaa intii dowladdii xukuumadda Muuse Biixi uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi in dadka la xidho dabeetana lagu xidho aragtidooda iyo fikradahooda waxa dad badan isku raacsan yihiin in inanka madaxweynuhu ciidan khaas leeyahay dabeetana ay hargeysa dadku ku xidhaan dardaarankii koobaad ee madaxweyne Biixi uu siiyey Daahiryaale waxay ahayd madaxweyne shaarkaaga yaan loo gashanin cid kale laakiin iminka ilaa garamadiisii baaba dadka loo xidhanaya shaarkiisii baaba la dhaafayba haddii ay jirto oo dadku u sheegeen in madaxweynaha inankiisu ciidan samaystay ciidankaasina siday rabaan ay dadka ka yeelaan oo la arkay waa khalad in madaxweynuhu ku sii dhigaaday ayaamo yar buu sii joogayaa dunida maaha madaxweynuhu inuu dadka la soo hortaagnaado waxaasi ma jiraan qofba fikrad ma 3 milyan ma 5 milyan oo Facebook aragtidooda ka dhuubta ay madaxweyne muxuu ahay aragtidooda ku xirxiraysa dhalinyaradii waxaanay ka gabeeyaan waa aragti maaha wax siyaasi u soo dhiibay waayo waxa soo dhalinyaraha oo dareen hadlaya calooshoodu ma hadashan calooshoodu gabayga caloosha waa la yaqaanaa iyo gabay hunguriga waxaan gabay hunguri maaha waa gabay dareen hogaaminayo maadaama shaqale yihiin maadaama iyagoo jaamacadii ka soo baxay guryaha iska joogaan maadaama banaanka iyo maqaaxiyaha iska fadhiyaan mahanin xarig loogu daro dadka sidan u fakeraya suugaanta noocana ay ku kaydsantahay maskaxdooda waxay ahayd in xukuumadda isku daydo inay mashaariic furto weli 30 sannadood xataa lama sameynin guri suugaanta lagu kobcinayo guri afkii lagu dhaqayo guri af Soomaaligii dhintay lagu soo nooleynayo xukuumaddu ma sameynin dhammaantood markaad wada aragto cabur siyaasadeed bay ka cabanayaan haddaba madaxweyne maanay kula ahayn intii aad dhegatirisay waad dhegatirtay adiga iyo xukuumaddaaduna last minute-kii baa taagantiin dareenka dadkana dhegayso mar dambana cabur siyaasadeed Somaliland yaan la leeman inankaaga iyo ciidankiisana dadka ka qabo Somaliland waxa la sheegay oo anigu aan la sheekaystay dad inta guriga lagu xidhay si aan qurux badnayn loola dhaqmay laakiin su'aashu waxay tahay berito waad tagaysaa inankaaga iyo ciidankiisu xagee tagayaan waanu kuu qoraa maalin walba waxaad ku hadlayso maalintaanu ku soo qabannana oohintaada iyo baroortaada laga baxay weligii baa xusuusnaado waanu soo qabanno cadaaladdan waanu horgeyn wallaahi baan ku dhaartay ishaana waanu ku haynaa inina adeer sharciga kama weyna anna kama weyni ka kale hadlayana kama weyna sharcigaasaa qof walba la horgeynaya boolisku intuu sankaa iyo labadaa dhigood ku soo qabto ku soo eedaynaya ku talagal ama nin weyn haw xasaarad haddaad leedana meesha loo maro waanu naqaanaadeen haddii kalena waanu naqaanaa bulshadaas annagaa shaar kulee kuu gelin doonne annagaa naqaana halkaa ku gelin doonno waxaa weydiinayaa taliyaha halkeedi geynaysaa maadi dilaysaa maadi qafaalanaysaa waa ku weydiinayaa kii soo doortay waxaan u sheegayaa haddii lay waayo bayooda xuy muddo haddii nafta
wad ilaahay mooyaane turatura kale soo gaadho janaka booliska loo raacay jabaadiisii annaga garayna halkan ku geeyay dhowlaha kelmadii ugu dambeysay ku gabagabeeyay wuxuu yiri xerow ciidanku boolisku leeyahay oo dambe soo galmeys daba gal waxa weydiinaya xiriyaa ciidanku ma xiriyaa ciidanka booliska ahayn kuwan shalay la miisaanada loo kordhiyay ma ciidanka boolisku in miisaanadooda lagu dagaalamay meenay kuwan dhisay ma habeen iyo maali booliska ahayn xiriyaa booliska ma daba waxaad daawanayseen ama dhegeysanayeen xildhibaan xasaanad leh oo ka hadlaya isagoo shaadh ka yar loo gelinayo isagoo ka cabanaya meeshuu sharciga u dejinayay uu xeerdejiyaa u ahaa taliyihii ciidanka biliiska oo dadka u hanjabaya ayaad daawanayseen ninkan dhallinyarada ee muuqdaa waa abwaanka maansadan iminka dhallinyaradoo dhamme ay tirinayso ee wadaagayso bilaabay bal isagana oo 3 casho ka hor maansadan soo tiriyey aan idinla wadaago maskaxdiina iyo maankiinana u fura Soomaaliland waxay u baahan tahay in la kaco lagana hortago caburka siyaasadeed taariikhdu waxayna baraysaa biijaj cusub laakiin waa inaan wax ku darsanaa oo ka hortagnaa wax kasta oo cabur siyaasadeed dadka u keenaya waa anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo maansada dhegeysi wanaagsan axmedow xuuraankaad wadaa waa xujiyayaabe in yar baan xaqiiqada dhabtaa kaaga xadayaaye marka laga xodxodanayo gaal xoolo laga qaado dimuqraadi xoogaysatiyo xeerar lagu faano waxba yaan xorriyad qowl dibnaa laga xayeysiine xarafkii ka qora dawladdani xuma ka dhiilaaba xabsigiiyo wuxuu mudanayaa liinta xoor kale xusbi kale qofkii lagu arkaa waa xakamadiid xaakimiinta kaan ka mid ahayn waa la xidhayaa saxafiyiinta waxa loo xanibayaani xarakayn xaawaladii qiimaa lahayd laga xishoon waa xaalad kale aakhir saban la isxaqirayaae xalay waa maqlayseen warkii miidhiyaa xulay xildhibaanadii baa lahaana la xurmayn ka xasaanadda leh sidan haddii loo xagxaganayo bal xuurtada miskiin lagu hayana dib uga xaajooda tan ninkii xiniyaa lahaa sibiq xawaareeyo hablii qaar markii la xukumay xamar u yaaceen kaadh laga xoqdiyo silicunool xawiilan mooyaane xiise looma qabo kii dulmiga ka xarragoonaya ha yeeshee xalkeedaa la heli xaylo dabadii mar unbuu xilka u qabanayaa wiil xasiliyaa xayaatada adkaatiyo wakhtiga laga xuruumaayo insha allah xaysi noo curtiyo dhool gubaa xigiye xilli ay ahaataba shacbigu waa xasilayaae xejistaay sad khayrliyo nasiib xiimayaa imane axmedow xuuraankaad wadaa waa xujiyayaabe xoogaal dhibaatada jirtiyo taabta xagaldaaca nin abwaana xaggan lama oggola inuu xaq sheegaaye xidigii qarnigan calanka siday xididka suugaanta xasan daahir weersame ninkaa shacabku xiiseeyo isba xaadir weeyaan haddana xarakadayn waaye ma xafladiya maansooyinkii duurxulka ahaaye xaskay dabada geliyeen raggii xiid ahaan jiray oo wax suuqa lagu xaabayaa xeelo doqoneed mar haddii bulshada kii xoqdaba xamil ku rooraayo annayaan xasaasiga ku mudan xeraka weydaaray xanuunkeeda iga daa murtida hay xasaradayni